بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن داوديال عيد الأضحى وناكسن أيان إذن لنا هاي كسو دوادا قضبدا ugu waaweyn ee aan maanta idin hayno ee kaaha wararka maanta oo ay tahay maalinimo Arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha 7 July sanada 2021 khilaafkii ugu xooganaa oo saameyn xun ku yeeshay oo soo kala dhaxgalay taliska militariga Soomaaliya iyo AMISOM shuruudo aan la filayn oo lagu soo daray habraacyada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyntii ugu xooganeed ay la beegsatay maleeshiyaadka nolol-diidka ah ee Al-Shabaab Somaliland oo awaamirtii ugu xooganeed ka soo saartay isticmaalka maandooriyaha iyo khilaafka ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo sii xoogaysay meeshii ugu sareysana gaaray markale ismaqal wanaagsan arag wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal halkani waa ka wararka subscribe inaan noo saarto muuqaalkana like saarto share na dhahdo ayaan ka cusanaynaa si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed markana waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan aynu ku bilownay khilaaf xoog leh ayaa soo kala dhaxgalay saraakiisha sare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxa uuna wiiqay howlgaladii ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socday gobollo ugu horeeyo Shabeellaha Dhexe barnaamijka galka baarista ee ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa soo madhigtay in khilaafkaasi uu qarxay markii ciidanka xoogga dalka ee howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sida uu barnaamijkan u sheegay sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan Shabeellaha Dhexe khilaafkan waxa uu qarxay markii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay bilaabeen howlgal aan lagu wargelin AMISOM kaas oo hogaaminayay taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka General Odawaay Yuusuf Raagi intaasi kadib waxa la sheegay inuu qarxay khilaaf iyo kala aragti duwanaansho xoog leh oo u dhaxeeyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kalena barnaamijkan waxa lagu soo bandhigay xogti ku qorneed warqad ay isdhaafsadeen talisyada SNA iyo AMISOM kuwaas oo taliska militariga Soomaaliya uu uga dacwoonayo ciidamada Burundi ee ku sugan Shabeellada Dhexe taliska militariga Soomaaliya ayaa ciidanka Burundi ku eedeeyay in Al-Shabaab madadaalinayaan oo caajis badan oo howlgallada naadirka ah ay maalmaha qaar ay sameeyaan oo ka muuqdo dhanka kale waxa la soo saaray habraacyada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shuruudaha warqadda aansi anshaxa musharaxiinta u tartami doona aqalka sare si akoon banki oo musharaxu ku shubayo khidmad lacageed ee ah $20,000 haddii uu rag yahay haddii uu dumar yahana $10,000 Mareykanka ah shuruudahaasi shuruudo aan la filayn ayaa ka soo muuqday durbana waxa soo ifbaxaya walaac ay muujinayaan qaar ka tirsan shakhsiyaadka doonayo inay ku fadhiistaan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri guddigu wuxuu la wadaagayaa codsi qoraal ah oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada in ay u soo sharaxaan musharaxiinta aqalka sare ugu yaraan 2 musharax kursi kasta si waafaqsan shuruudaha xubinnimada golaha aqalka sare sidoo kale guddiga ayaa qoraalkan ku sheegay inuu qabanayo warqadaha magacaabista musharaxiinta aqalka sare iyagoo ka hubinayo shuruudaha musharaxnimada isla markaana xaqiijinaya matalaadda qoondada haweenka ee 30% sida lagu shaaciyay qoraalka guddiga shuruudaha laga doonayo musharaxiinta aqalka sare ayaa kala ah qodobadan soo socda inuu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u dhashay inuu dhimirkiisu dhan yahay in da'diisu aysan ka yareen 25 sano in aan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waaye aragnimo u dhiganta inuusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah la lahayn kooxaha argagixisada ah inuu haysto warqadda dambi la'aanta ah ee hay'adda dambi baarista CID-da maamul goboleedyada ama mid federaal musharax kasta oo u tartamayo golaha aqalka sare waa inuu bixiyaa lacagta isdiiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bankiga ee guddiga doorashooyinka lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare waxay noqonaysaa $20,000 Mareykanka ah halka musharaxiinta golaha shacabka ee markaasi u tartamayna ay noqonayso $10,000 Mareykanka ah lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta dib looma celinayo haddii musharaxiintu ay bixiyaan waxaana arintaasi ay ka dhigan tahay in musharaxii guul iyo guul darro intaba keenaba oo lacagtiisi weynayo dhinaca kale waxaad daawanaysaan daawadayaal weli warka subaxnimo ee ka wararka waxaan ka cusanaynaa markale inaad muuqaalka like saarto share na dhahdo si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed oo baahi weyn u qabo helidda xogta iyaga aan halkan ku baahinayno dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in duqeyn cirka ah ay la beegsatay dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay dhacday barqanimadii markaasi abaara 5:15 daqiiqo maalintii shalay taasi oo lagu tilmaameysaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab qoraalka markaasi marnaba lagu shaacin goobta ay duqeyntu ka dhacday marka laga yimaado inay ka mid tahay deegaanada maamulka galmudug ee ciidamada dawladda ka wadaan howlgallo lagu sifaynayo shabaabka halkaas ku sugan oo maalmihii dambe halkaas si dardar leh isla markaana la yaab leh kaga soconay iyadoo maalin waliba ciidamada ammaanka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay markaasi ku soo bandhigayeen tuulooyin dhowr ah ay kala wareegeen kooxaha nabadiidka ah isla markaana khawaarijinta ah ee al-shabaab cabsidii ugu weyneed ee al-shabaab soo wajahday ayaa 22 markaasi barqanimo duqeynta la beegsaday waa cabsidii ugu xoogganeed al-shabaab ayaana soo wajahday maadaama duqeymaalkaasi ka socda ay bilowdeen isla markaana dhulkana ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan ciidamada militariga Soomaaliya ee halkaasi ku sugan taasi oo la difaacay markaasi lagu difaacay geesiyada ciidanka kumaandoosta ah ee xogga dalka ee danab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya duqeyntaas ayaa ahayd sida lagu sheegay war-saxaafadeedka mid lagu ilaalinayay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa danab ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ka wada deegaanada maamulka galmudug duqeynta lagu difaacay ciidanka wax dhibaato ah uma geysan dadka rayidka ah ciidanka xogga dalka iyo danab way sii wadayaan dagaalada ay ka wadaan dawladda waa markaasi ay ka wadaan dawlad goboleedka galmudug si ay uga xoreeyaan shacabka Soomaaliyeed falal ee xaasidnimada ah ee canaasiriinta al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalkan waxana arintan ay ku soo aadaysa iyadoo maalmihii danbaba ay halkaasi ka socdeen howlgallo xoogan oo dhanka dhulka ah isla markaana oo horkacayo General Saadaq John oo kamid ah saraakiisha Soomaaliya isla markaana sida weyn Muqdisho wacdara ka dhigay xilliyadii khalalaasaha iyo farmaajo xilligii oo xukunka isku dhijinayna 10 fiican u dhigay sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ma sheegin cidda geysatay duqeyntan hase yeeshee waxa la rumaysan yahay inay ka qayb ahaayeen saaxiibada Soomaaliya ee ka taageera dagaalka ka dhanka al-shabaab waa 19 Janaayo ee sanadkan ay ahayd markii duqeyntii ugu dambeysay ee rasmi ahaan oo markaasi loo shaaciyay oo Mareykanku ka geystay Soomaaliya xilligaas wixii ka dambeeyay dawladda Mareykanku oo markaasi uma sheeganin wax duqeymo ah oo ka dhacay Soomaaliya hadii aynu wada jirno al-shabaab wax uma dhimi karaan shacabka Soomaaliyeed hadii aynu wada jirno al-shabaab wax uma dhimi karaan shacabka Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ay wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug ka soo saartay duqeymaha halkaasi galmudug ah laga fuliyay si kastaba duqeynta ay sheegtay dawladda in la bartilmaameysaday al-shabaab ayaa imaanaysa xilli maalmahan ay dagaalo ku dhex marayeen deegaano u dhow Bacaadweyn iyo Camaaro ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka ah ee al-shabaab waxaana lagu wadaa in ciidamada ay halkaas howlgallada ka wado ay markaasi gaaraan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug halka oo ah meel istiraatiiji ah isla markaana si weyn al-shabaab ay ugu xoogeen yihiin waxaana lagu wadaa in hadii ay Xaradheere qabsadaan ay noqonayaan ciidamada halkaas howlgalka ka wada howlgalladii ugu horeeyay tan iyo markii madaxweyne Farmaajo uu qabsaday guuleysto maadaama si buuxda degmo ay gobolada dhexe ka tirsan ilaa iyo haatan dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan kala wareegin al-shabaab tan iyo markii madaxweynaha xilligan madaxweynaha ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka qabtay وهاجاك داوديال قيبه دنبه warkayga subaxnimo ayaan isla soo gaarnay guud ahaan warkii aad kala socoteen ka wararka subaxnimadan waanaga inta waxaan ka codsanaynaa inaan muuqaalka like saarto share-na dhaxdo si xogaha aan baahino oo xasaasiga ah isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan ay u helaan bulshaweynta Soomaaliyeed mar kale waxaan idin leenahay Ciidul Adha wanaagsan mahadsanidin